yaroon dhalay oo ciyaalka xiray ka mid ahayd oo kolley la marin habaabiyey ay inay maanta geeriyootay aanay isdishay ayaa la ii soo sheegay inay isdaldishay adigu waa laga qarinayay geerideeda inay maxaa la yidhaha inay isdaldishay icdaad inay adiga ay xarig soo suratay meel sare marka 3 beri ayay isbitaal ku jirtay waa sida la ii sheegay nin abtigeedu maanta ii soo sheegay oo yacni nin wanaagsan ah oo kolley meesha joogay saacad ka hor ayay dhimatay ayuu ugu yiri kolley ninkaasuna nin been sheegaya ma ahan nin been sheegi doona ma ahan waa nin dadka wanaagsan ku jira abtiyaalaha xumaanta yacni horay yacni uga qayb qaadanaya ka mid ma ahan waa abtiga keliya toosan maxaa la yidhaahdaa oo yacni xaqnaaska oo ilaahay dartiis ah ma fahanta abtiyaa adigu wuxuu ii sheegay gabadhii yareedoon dhalay inay geeriyootay maanta inay isku soo xirtay adigu xarig inay soo suratay meel sare sidaa ka bacdiina inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun isbitaal in loola orday isbitaalkii inay ku jirtay adigu beriyo ka bacdiina adigu maantadan maxaa la yidhaahdaa saacado ka hor yacni in mashiinkii dhimashada laga furay oo ay sheegeen maskaxdu inay beri hore dhimatay laakiin wadnaha ay ka nooshahay marka kolley gabadhaa way dhimatay way naga baxday allah u naxariisto 2 ragcaan tukaday yacni waa iska cafiyey waxaa sabab u ahaa dad bani aadana maanta caasi waalidiinnimo inay ku dhimato adigu sixir saangudub xaasidnimo waxay noqotaba masiibada adduunka yacni dad ayaa ilaahay xisaabinaya kolley anigu maanta waa noolahay oo waan ku cafiyi karaa laakiin canugaa saqiirkaa maanta naftiisa ku gabadha soomaaliyeed muslimadda ee caasi waalideynka aad ka dhigtay nafteeda ku qamaartay cafiyey laakiin nafsadeeda adiga maxamed nuur duublow iyo saare kulanay iyo dadka asxaabta oo yacni gaashaanbuurta danfarow maalinta qiyaame caasho shalay dhimatay saacad ka hor dhimatay maantay dhimatay adigana beriyaa dhimane insha allah kolley ilaahay iguma talagelin adduunka caasi waalideynna maanay ahayn caasi waalideynna maanay ahayn ilaaha jecel qof ahludiinahay ahayd 114 dhammays sheekh cumar faaruq axaadiistiisa dhegaysan jirtay tafsiirka qur-aanka baranaysay kolley ilaaha u qadaray adigana laga yaabay sabab inaa u tahay ama sixir ama xaasidnimo yacni inta aad ku xamaalatay ama haddaad faraxumaysay adigu wax allaala waxaad ku samaysay kolley qiyaamahay kaaga horeeyaan maalinta qiyaamo ee ilaaha weyn hortiisa la taagan yahay maalinta yowma yafar almar'u min aqiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi likulli imri'in minhum yowmaidin sha'ni yugniih wujuuhun yowmaidin musfiratan asfar wejigeeda yeelow uu noqon doonaa saxfraan insha allah ilaahay ha u naxariisto kolley waa baxday waynana dhaaftay laakiin laga yaabee dunida inuu ilaahay ugu talagalay intaasi ku lahayd dunida inay ka qaado intaasay ku lahayd dunida
laakiin inuu waa la isdulmiyaa madluumkeedaan ahay madluumkeeda ayaan ahay adigana daalimkeedaad ahayd adigay madluumkuu noqotay axmed cabdisixir abtigeed ayaa soo sheegay oo waxyar ka hor isoo wacay nin ma aha been aan uga bartay waa fahantay kolley waxaa nasiib u yeelatay inaa maskaxda intaad ka damage ka gaarsiiso maanta isdisho yaa faamili qurux badan oo dhaqan inaad dekan daakan ka dhigto ma fahantay way xanuun badan tahay maxaa u malayleed canug muslin eed ka dhigtay caasi waalidayn aad ku xamaalatay ilmaha kuu xambaaray guriga kuu dhaqay cunto kuu kariyey waxaad doontoo kalena aad ku samaysay yaa waalidkeed aad ku dirtay shahaado suur aad ka dhigtay maxaa gabadhayda gubaay yaa maxaa canugaa saqiir maxaa gabadhaa gubaay saqiir ma ahayn dembi iyo xasanay kala leedaha maanta laakiin nafsadeedii dhammeedaa lagu waayey so الدنيا متاع الغرور ومتاع الغرور لعب ولهو وعيار الدنكو عاش داود وادمتي أما فرح أما كنح كل نفس دائقة الموت كل نفس دائقة الموت هاي إلى وقف كيني غيري إنها كل من ويادي أنو يدو عينه دمتي أيضا أنو قلبي أقوحني دمتي لكن نسيبي الله هاي ما أنت لبرك عنو دو كذا وإسك عفيه إلهي درتي سانكو عفيه وفهمتي وحبضا إلهي بأبري صلاة الليل أن كنت كذي وحبضا إلهي أيان أبري جري إنو أقهر مريو ويدع عدم ما أنت إلهي وقبتي لكن الله يقعفيه تا ما أنا قرانين حنونك إيقا تنبضنا وقت قاس يا قرق هذا كنا ولد أيضا قبر دي يرين دالي أنا أقورن إشي هذا تف إنو كدعو إنو نين إسلامات أي قرق هذا كوهيتو بل إنا نورسن بورو وانا تقيامي ركوب كذا إنا أتهلا قيامة إن شاء الله سهرة كلناي سهرة أحمد كلناي قرقيقي كسارتي قيري هذا ما أنتو فرح إن شاء الله عاشا وعد متي سيبي الله ذا هاي مظلوم كذا أنا هاي قف كي دول ميدان هاي أبيه علي لغا سوقوي صوحا باريان هاي بديت كيسكو سوكوري أديق أنا مظلوم يكو أهد بكوس وا استعماش عاسي والدينا كدكتي أدو أما باب يعني ريروقويغا دي راجبوتي أدي جروالي بابي أما السحر أما سيكالا أدو استعمال وارد بانا هاي أن حمان عنو قيسا لجعلين لا فهمتي ما أنت أدوها كتكتي آخري وين يعني وين نقول ريسا يعني معجزوين كدعا أدون كي كميتا هاي فاميلي دان إديسون يا قروح بدن إله هذا كحرن دينتي برناية دقن كودي تربيته هذا هايستا يعني حاكم معاشتي كوغو إيماني هذه أنا مالني كوغو إيماني أكسونو ما أنت ويدي بط ما أنت أيضا ويدي بط وينقو waxay tahay way naga horeysaa ma fahanti way naga hooseysaa xabaasheedii diyaarsan waxayna nasiib u yeelatay dhulka waa u jeclaan meel haddii dhimashada taale meeshii dhacankaa ku bixi waa lagu dhigi sayidki dhulka waa u jeclaan meel haddii dhimashada taale oo meeshii dhacankaa ku bixi waa lagu dhigi waxaa qorneed inay ku dhalato ceelbuur
inay ku soo korto xamar etoobiya inay imaato ya etoobiya inay imaato inay denver colorado igu imaato inaa gurigay kala baxdo gurigayga inaa kala baxdo gurigaad inta geysa qidaamo aa ka dhigato aa lacag ku qaadato aniga iyo isticmaasha ugu dirto ana waalidkeeda ya ma fahante maantane sorry wallaahi dadka hoosta ka ooyaan ahay ma aqaan emotionka maanta waxa iga keenay dadka hoosta ka ooya ahaan jiray oo qalbiga hoose ka ooya laakiin adkaysi waa dhammaaday haddii fool imaataa la yiri ma fahante meelay ku geysaba godobteeda la caraawo